ma dareentaa kabaabiyo lugaha iyo gacmaha ma ka dareentaa in marmarka qaar xataa dad cabaar istaagnaato ama aad meel fadhido inay lugtu naab ku noqoto lugta inaad dhulka ku garaacdo maahan aad soco weydo oo ay lugtu ay ku kaboobiyoto madax xanuun ma dareentaa daal fara badan ma dareentaa adigoo xataa hadda hurdo ka soo kacay waxyaalahaas oo dhan irritability ma dareentaa iyo xanaaq aadan isku arki calaamadahaas oo dhan haddii aad isku aragto videogan daawo waxyaalo badan aad ka fahmi doontaa waxaan uga hadli doonaa fitamiin ka mid ah fitamiinada jirka bini'aadanka ku jira oo haddii uu jirkaaga ku yaraado calaamadahaas iyo calaamado kale oo badan aad u keeni karo isku soo noqosho wanaagsan halka aad videogan ka daawanaysaan waa Dr. Xaashin Network YouTube channelka aan ku leeyahay fitamiinka maanta aan rabaa inaan ka hadlo waxaa loo yaqaanaa fitamiin B12 waxaan ka hadli doonaa videogan uga hadli doonaa waa maxay muhiimadda uu leeyahay fitamiin B12 uu jirka u leeyahay calaamadaha haddii maxaa koos gareeya ama sababa inuu lambar 2 maxaa sababa inuu daciif jirka ku noqdo lambar 3 waa maxay calaamadihiisa lagu garto oo lagu arkaa iyadoon waliba xataa laab iyo shaybaar la gaarin calaamadaha ama astaamaha lagu gartaa waa maxay lambar 4 waa maxay solutionka oo ay ka mid tahay cuntooyinka fitamiinkaas laga helo waxyaalahaas oo dhan ku faahfaahin doona videoga soo socda ugu horeyntaan ku bilownay fitamiin B12 waa mid ka mid ah fitamiinada ugu muhiimsan jirka bini'aadanka sababta uu muhiimka u yahay waxay tahay kow wuxuu maaragtay neerfaha jirka bini'aadanka neerfuhu sida wuxuu u socdaa waayaradii hadday noqoto brachial plexus iyo neerfayaasha gacmaha oo peripheralka leeraa kuwa lugaha oo haddii ay ku rooyo sciatic nerve ay ka mid yihiin oo waxa waaye sacral plexus la yiraahdo iyo lumbar plexus iyo gebigood neerfayaashaas baxoo jirka bini'aadanka waxay u shaqeeyaan sida korontada oo kale korontada fiilada korontada waxaa ku jira xariga ku duuban caagaha korka uga duuban caagaas protectivena waa uu yahay oo uu ka ilaaliyaa in waxyaalo kala taabtaan speedka ama conductionka maaragtay speedka uu ku socdana wuu siyaadiyaa marka si lamida jirka bini'aadanka neerfayaasha mara waxay leeyihiin wax la yiraahdo myelin sheath la yiraahdo ku duuban oo u fududeeya inuu speed uu xawliya ku socdo neerfaha tusaale ahaan hadaad meel maaragtay kulul aad gacantaada saarto waxa waaye efferent wax la yiraahdaa jirto neerfa oo sensory oo maskaxda u diraa inay gacantaan dab saaran tahay elbreqsi gudaheeda maskaxdu amar kale soo baxayda motor unit wax la yiraahdaa muscleska activate garanaysa gacanta sidaas uga soo dhifsayda hadduu slow noqdo waxyaalo badan dhacay inay gacanta gubato inaad bir qodax ku istaagto aadan ka istaagin waxyaalahaas oo dhan dhacay marka myelin sheathkaas formationkeeda inay samaysanto oo neerfaha protect garaydo ilaalida inay samaysanto waxaa number 1 mas'uul ka ah fitamiin B12 wuxuu maaragtay caawiyaa myelin sheath formation number 2 marka sidaas hadduu uu maaragtay u daciif u noqdo xanuun neerfaha la xiriiro xanuun neerfaha oo kale uu keenaya waa sababta daawooyinka neerbiyoonka oo dhaqaatiirta neerfaha ay qoraan uu fitamiin B12 ugu jira sababtoo ah neerfaha uu muhiim u yahay marka qaybta labaad waxaa jirta wax la yiraahdo maaragtay red blood cells unugyada cascas oo dhiigga samaysadkooda kaligiis mas'uul kama aha laakiin fitamiin B12 ku muhiim u yahay marka haddii fitamiin B12 ku jirka ku yar yahay red blood cells kaasuna way yaraanayaan marka yaraadaan megaloblastic anemia wax la yiraahdo jirka oo qofka ku dhacayda anemia keeni kara xataa inta badan waxyaala kale iyo dhiigga ku yar iyo kana ku yar iyo waxyaalahaas iyo iron level iyo waxaas laga hadlaa laakiin fitamiin B12 wuxuu keeni karaa megaloblastic anemia wax la yiraahdo keeni karaa oo red unit ay maaragtay yaraadaan red blood cells wuxuu kaloo fitamiin B12 ku muhiim u yahay wax la yiraahdo energy metabolism energy-gan ama aad maanta dad koob shaaha cabto ama aad cunto digestive system ku maraya mechanism jirta oo comfort gareeyo energy-gaas cuntada u bedelo energy usable oo jirka bini'aadanku uu isticmaali karo oo aan ku shaqeyn karno ku soco karno marka fitamiin B12 in general fitamiin B complex wax la yiraahdaa jirta video kale uga hadli doono oo noocyo kala duwan fitamiin B ga jirta oo caawiya laakiin fitamiin B12 waa number 1 oo asagaasna ka caawiya midda ugu dambaydo afraad oo ugu muhiimsan iyaduna oo fitamiin B12 ku muhiim u yahay waa DNA synthesis DNA guna waa DNA guna waa building blocks uu maaragtay proteinka oo jirkeegu uu ka samaysan yahay marka oo maaragtay proteinka oo jirka bini'aadanka uu ka samaysan yahay building blocks waxyaalaha la yiraahdo waa marka DNA synthesis iyo inuu DNA cusub uu sameysmo ayadana uu ka caawiyaa sababtaas marka waxa keenayda fitamiin B12 markuu qofku yiraahdo in calaamaduhu tirada ka bataan meelo badan oo saameynaya energy-gu saameynaya oo meesha fatiga iyo daalku ay ka imaanayaan red blood cells-ku saameynaya oo daciifnimada iyo iyaduna tabar darridu meelaha ay ka imaanaydo iyadana xataa laga yaabo fariisi iyo xanuuno yar yar inay kugu dhacaan energy metabolism-ku saameynaya marka dhinac walba jirka ka saameynaya markii fitamiin B12 uu low ku noqdo haddaan u soo gudubno
waxyaalaha keena inuu low noqdo. Vitamin B12 ku unlike vitaminada kale si uga duwan yahay poor diet. waxaa number 1 waxaa ka ah poor diet inaan dietkiisu qofka uu safiicneen qaasatan dadka qudaarta kaliya cuna. vitamin B12 ka waxa ugu badan oo laga helaa waa hilibka laga helaa hilibka xoolaha waliba laga helaa oo maaragtay beerka iyo u tagi doona waxyaalaha laga helo. marka dadka qudaarta kaliya cuna ama aan hilibka cunin oo maaragtay vegetarianka la yiraahdo uu ku yaraadaa mar walba soo poor diet la yiraahdo. marka diet ka saan balance garaysnayn uu keena. number 2 waxa iyadana ugu muhiimsan meeshan waa very important dadka chronic medical use medication oo isticmaala sida metforminka kaniiniyada sonkorta hadaad isticmaasho oo waqti dheer isticmaalide way saameyn xoog leh ku yeeshaan vitamin B12. waxa kaloo saameyn xoog leh ku yeesho oo kaas uga sii qatarsan dadka daawooyinka gaaska sida joogtada oo cuna sida pantoprazolka iyo daawooyinkaas cuna oo hadii la ku roon yahay anti acidka leeyahay sababtoo ah daawooyinkaas waxay yareeyaan acidka caloosha. acidka calooshuna wuxuu fududeeyaa vitamin B12 ka in cuntada laga absorb gareeyo oo fududeeyo environmentgaas acidka ah vitamin B12 ku sameysmaa. marka hadaa daawo gaas si joogta u cunto oo chroniga ayadana waa laga yaabaa way keeni kartaa inay vitamin B12 kaagu uu hoos u dhaco oo maaragtay xitaa cuntadeedii adoo cunayo hoos u sii socdo. marka inaad ka warqabtaa waa muhiim. waxaa kaloo keeni kara autoimmune disease xanuunna la yiraahdo caloosha ku dhaca hadduu qofku qabo chroniga oo caloosha gastrointestinalka uu ka xanuunsan yahay ama surgery caloosha looga sameeyo iyadana way keeni kartaa. waxa kaloo iyadana keeni karta waxa la yiraahdo worms ama gooryaanka caloosha gala isaguna uu keeni karaa oo maaragtay bahalada caloosha gala iyaduna nafaqadii waxay la wadaagaysaa nutrientska jirka aadi lahaa iyaduna qayb ay ka qaadanaysaa inay la wadaagto bahalkaas uu isticmaalo oo waxyaalo badan u saameeya gooryaanka caloosha isaguna waa keena. aan u soo gudubno marka symptomska ama waxyaalaha uu maaragtay uu keeni karo oo calaamadaha lagu garto. waxaa number 1 ka ah peripheral nerves ku saameeya naam inay gacantu noqoto oo aad hadba saas qofku yiraahdo meel xusulka saara gacantu ay naam noqoto oo tingling iyo aad ka dareento xanuun waxyaalo oo maaragtay cirbada camala lugtu inay ku kabubiyo tacbari hadda meel fadhida aad ka kici weydo kabubyadaas common ku yahay hadii ilaahay ku roon yahay maxaa loo maaragtay uga duwan yahay xanuunada neerfaha kale markii CT scan iyo la saaro waxa la arki karaa meesha interruptigu ka jiro physical interruptigu ka jiro disc herniation oo dhabarka ka jira waxyaalahaas oo kale asaga ma la arkayo oo hadii la saaro hadii ilaahay ku roon CT scan ama MRI la saaro neerfaha damage looma jeedaa sababtoo waa myelin sheathki wuxuu saameynaya. marka numbness iyo tingling iyo inay lugtu ku qabowdo iyo in dadka qaar waxa arkayo ku dhahay circulationka dhiigga ku yar gacmaha dhiig kuma yara waxay u baahan tahay vitamin B12 deficiency inuu jiro. xanuunadaas neerfaha peripheralna uu saameeyaa centralna uu saameeyaa central midka waliba uu saameeyaa waxa la yiraahdaa subacute combined degeneration la yiraahdo spinal cord ki lafteeda degeneration uu ku sameeyo maaragtay oo daciifto degenerate garowda. marka waxyaalaha kale maaragtay oo calaamadaha uu leeyahay waxa kamid ah fatigue daal inuu qofku iska daalan yahay oo hadda hurda ka soo kacdaad sariirta ka kici weydo oo isha uu iska lahayo indhaha kala hayda waa soo jeedaa mana kacaydid. wuxuu leeyahay hurdadu inay qalab gasho marna ay qofka ku badato marna ay ka yaraato. wuxuu leeyahay cognitive decline in hadduu aad u sii bato wuxuu keenaa inuu qofku hilmaankiisu bato dementia ay kusoo degdegto cognitive decline wax la yiraahdo keenaa. wuxuu keenaa irritability inuu qofku si fudud isaga xanaaqo waxyaalo uu ka xanaaqi jirin ka xanaaqo maskaxdiisu ay buuq iyo maaragtay waxyaalo u dulqaada jirtay u dulqaada weydo confusion iyo jahwareer inuu ku yimaado. wuxuu kaloo leeyahay weakness ama daciifnimo leeyahay. calaamadahaas oo dhan waa leeyahay. marka sida definitive ka diagnosis ka lagu ogaadana waxa waaye serum B12 wax la yiraahdo dhaqaatiirtu u diran maaragtay dhakhtarka u tagto tirana iska baaran raba serum B12 ka la baara dhiiga laga qaada wala ogaa heerku yahay reference ya jirto oo normal ka ah adduunka loo isla ogol yahay normal hadduu ka hooseeyo uu low hadduu aad u sii hooseeyana waa maaragtay waa deficient. aan u soo gudubno qodobka afraad oo ugu dambeeyo maxaa lagu tacaalaa tacaalitaankiisu waxay ku xiran tahay hadba heerka uu leeyahay. hadduu waa low lagu yiraahdo waa kugu yar yahay lagu yiraahdo maaragtay waa inaad cuntada laga helo number 1 waxa ka ah beerka xoolaha kamid ariga iyo lo'da iyo geela iyo beerka xoolaha adu kamid hilibka lo'da iyo hilibka ariga iyo hilibka guduudan oo dhan waa laga helaa. chickenka waa laga helaa laakiin sida hilibka xoolaha uguma badna. fishka waa laga helaa caanaha waa laga helaa ukunta waa laga helaa inteeda badan maaragtay cuntooyinka proteinka ku badan yahay uu asaguna u badan yahay. waxa kaloo hadii cuntada laga soo gudbo maaragtay laga helaa supplementiga kaniiniya jirta la qaato supplementiga oo aan aad u cuslayn oo aad gramkooda u weynayn
laakiin marna adigoon dhakhtar tegin oon isbaarin inaad daawo qaadato ma fiicno. Tiraa calaamadahan waa isku arkay vitamin B12 aan qaato sababtoo ah xanuuno kale oo calaamadahaas loona waa jiraan oo maaragtay calaamadahaas leh. Marka haddii aad maaragtay isaga shakido ama qof aan hilibka cunin aad tahay ama qof daawooyinka chronic isticmaala aad tahay oo calaamadahan aad aragto inaad dhakhtar u tagto ood isbaarto ood soo ogaato hadduu kugu yar yahay. hadduu aad severe u siiyo aad u sii yar yahay xataa maaragtay dhakhtaradu waxa waaye injection ay ku dhiftaan cirbaday ka gaarsiiyaan hadduu yar yahay. sababtoo waxa waaye neerfayaasha dhan u kontroolaa. waana sababta sidaan hore fiidiyowga hordhaceedan kugu sheegay kiniiniyada neerbiyoonka la yiraahdo neerfaha uu vitamin B12 ugu dhex jira oo qayb ka mid u yahay. sababtoo neerfaha dhan uu mas'uul ka yahay oo maaragtay uu muhiim u yahay. marka hadday noqoto daaweynteedu waxay ku xiran tahay heerka uu joogo. hadduu wax yar iska maaragtay xoogaa low ku yahay cuntooyinka laga helo badsaa lagu leeyahay oo sidaasaad samaynaysaa. hadduu meel iska dhexdhexaada yahay lowna uu yahay low sii hooseeya uu yahayna tablet ama kiniiniyaad qaadanaysaa. hadduu aad u daran yahay severe deficient uu yahayna cirbada lagugu dhifanaya. marka waa muhiim waxyaalo badan oo qaybo badan 4 qaybood oo jirka sidaan hore uga soo hadlay oo uu mas'uul ka yahay oo maaragtay. marka vitamin B12 waa very important. laguma baraarugsana waayo aan maaragtay dhaqaatiirta iyo aysan u baarayn oo aan looga hadlayn oo uusan caan u ahayn. wuxuusan caan u ahayn xanuun hore laga garto ma leh. markuu calaamadahan qofku isku arkaya waa maruu soo daashaday oo waqti badan oo ay maaragtay uu aad loo u soo ahaa. marka sababtaasaa keenta inaan aad loogu baraarugsanin vitamin B12 aan dhaqaatiirta iyo xataa xarumaha caafimaadka aan hore hadiiba laga baarin. inta badan markay qofka wax walba ka baaraan oo fahmi waayaan leeyahay vitamin B12 na loo diro. hadda xoogaa waa lagu soo baraarugaya oo dunida oo dhan waa ku soo baraarugayda. marka fiidiyowga halkaasaan kusoo gaabinayaa. horena waxaan uga soo hadlay vitamin D aan uga soo hadlay iyo xanuunka iyo daadan YouTube ku xirnayn. fiidiyadaas oo dhan waa ka daawo kartaa si asbuuclahan u soo geliyaa YouTube-ka Dr. Hashi Network aan fiidiyada noocan oo kale u soo geliyaa. marka dadkiina hore noola jooga waa mahadsantihiin. kuwiina cusubna soo dhawaada halkaasaad ka daawo doontiin fiidiyo badan oo caafimaadka la xiriira. aad iyo aad u mahadsantihiin. salaamu calaykum.